goobtan aad u jeedaan waxay ahayd goob lagu feereeyo dharka ma rabtaa sida ay isku bedeshay dukaankan weyn daabo oo dhameyso fiidiyogan waad maasantahay aan imaanay maanta bakaaraha waxaan booqanay dukaan kamid ah suuqa bakaaraha waxaan ku ganacsado ninkan aad u jeedaan waxaana la yiraahdaa Suleyman ku soo dhawow generalkan waa Muhiddin official waxaan rabnaa inaad faahfaahin naga siiso ganacsigaaga iyo sidaad u ganacsato iyo waxyaabaha aad gado walaal waa ku dhawahay booqtaanka soo booqatani waa ku maasantahay marka koowaad ganacsiga waa midkan ahaanta aan taaganahay marka labaad wixii aad su'aalo ay wajirtay waa kaga jawaabaa waxaan ku weydiiyay Suleyman waxaan aragnaa hadda dukaan camiran ma sha Allah Allah ku dhaafo horta waxaan ka rabnaa ganacsigaaga meesha aad ka soo bilowday inaad faahfaahin wanaagsan naga siiso adigoona xumaan u arkin xumaan ma arkin saaxiib ganacsigayga waxaan ka soo bilaabay karfeeraysan soo bilaabay miisaan karfeerayay waan gartay hadda ma sha Allah ilaahay igu soo balaariyo aad dukaan gadaa oo micnaha waa feerada ay balaarisay صح وانا استجوجي في رد الدكان وبجستها صح marka shaqadii aad taan arkayso oo aan horta taagnta way ma sha Allah waan garan marka Suleyman ma kala kulantay wax caqabadaha bulshada micnaha qof waliba micnaha horumar gaaro waxa jirto qof ka soo horjeedo wax kugu dhibaateeyo dukaankaaga ganacsigaaga maya wax ugu dhibaateeyo ma arkin ilaahay inay muddo ما شاء الله bulshada marka sidaad oo macaamiisha wax waliba u baahan yihiin maysa bulshada sida wax waliba u baahan yihiin wixii aan hay wixii ahayna wixii weydiiyaan waxa hadda ugu muhiimsan